bulan bal arag barwaaqa siday ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya u nacabiin bal arag bal arag gobolada bulan bal arag barwaaqa siday ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya u nacabiin bal arag bal arag bilicdiyo dhismaha intay baxadiisu tahay khayraadka ka buuxa iyo siday nabadu bileen bal arag bal arag bilicdiyo dhismaha intay baxadiisu tahay khayraadka ka buuxa iyo siday nabadu bileen bal arag bal arag bida iyo mudug bacaad weyn iyo goldogob beledka gaalkacaya iyo beriga xulaha ku nool bal arag bal arag bida iyo mudug bacaad weyn iyo goldogob beledka gaalkacaya iyo beriga xulaha ku nool bal arag بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا anigoo ku hadlaya afka qabanqaabayaasha soo qabanqaabiya xafladdan lagu taageerayo looguna hambalyeynayo suldaan sheekh cabdiqani qorane maxamed waxaan idinka mahad celinayaa soo ajiibidda aad naga ajiibteen inaad ka soo qayb gashaan xafladdan bogaadinta suldaan sheekh cabdiqani qorane maxamed intaa markaan kaga baxo soo dhoweynta sidii nidaamku ahaa xafladda maantay waxaynu ku furanaynaa kelmadihii diiniga ahaa sidai caadadu ahayd marka waxaan jeclahay inaan u yeero yaxye cabdinaasir qorane si uu aayadihii qur-aanka inoogu akriyo yaxye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله العظيم صدق الله العظيم إلهي أجر يا حسنات كاسي يا دير عبد الناصر أديات بعض مهتسنتهاي وحلا يقعد صدي أرتا حفلته وحفلة تاجرو يبقادين سلطان شيخ عبد الغني قرنة محمد لكن سومالي ده مش جوكته أيها وحي يقعد صدين ما دام حفلة سومالية ده يتهاي إن لقفره لقونا بلابو هست علنك فاطمة على النكرومة فنانة دي قرن ما تصدق
aad iyo aad hobalada qaranka Faadumo Cali Makruuma oo noo daadihinaysay heesta calanka aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa Faadumo inta markaan uga gudbo xusuusta calanka iyo dalka xogaa mood bay galay intii yarayd waagii Soomaaliya ahayd baan dib u xusuustay calanka iyo waagii aan ku noolaay waagaan wax ku baranayay waagaan ka shaqeynayay marka waxay ii ahayd feeling gaar ah ayay aniga ii ahayd kulli ma aqaan dadka waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa inaad nagala soo qayb gashaan xafladan taageerada iyo soo dhaweynta Suldaan Sheekh Cabdiqani Qorane Maxamed waxaan jeclahay inaan wax yar ka iraahdo ama in la wadaago in yar oo ku saabsan doorashadii suldaanka iyo siday u dhacday suldaanka waxaa dooratay beesha Maxamed Cumar Maxamuud waxay doorteen 17kii bishii shanaad 2015 waxay ku doorteen degmada Xarfo waxaan u maleynayaa dad badan markaan iraahdo degmada Xarfo qaar badan oo aan waayahan dambe wadanku si isu bedelay ka warqabin su'aalaha is weydiinayaan Xarfo gormay degmo noqotay su'aasha waa la is weydiinayaa waan u maleynayaa Xarfo dawladdii 90gii intay jirtay ma ahayn degmo laakiin waxaa degmo ka dhigtay dowlad goboleedka Puntland baa degmo ka dhigtay marka hadda waa degmo ka tirsan gobolka Mudug oo dowlad goboleedka Puntland meesha ayaa lagu doortay 17kii bisha waxa isku raacay hogaamada nabadoonnada beesha oo dhan 33 oo ku kala matalayay aan iraahdee qaybaha kala duwan ee beesha usually kolley beel kasta ama jifi kasta waxay leedahay qaab ay wax u qaybsadaan baa jira xeer Soomaaliga baan filayaa dadku inuu caan ku wada yahay arrintaa marka number la isu keenayo oo laga wada hadlayo xaalad noocaas oo kala ah qaab la isugu yimaado ayaa jira kolley waxaan filayaa qaab beeshaas waxay isticmaashaa 3 xariga 33 qaabkaasi u taagan yihiin oo laga soo xulay qaybaha kala duwan jilibyada kala duwan marka aan isku dayo inaan qayb kale taabto
oo ah habraaca ku salaysnaa nidaamka lagu doortay suldaanka wuxuu ahaa habraac lagu doortay suldaankii ka horreeyey allah u naxariistay suldaan hurre ayuu ahaa qaabkii lagu doortay qaabka asagaa marka habraacaasi waa ka duwan yahay habraaca salaadiinta soomaalida inta badan ay ku yimaadaan ama lagu doorto waa ka duwan yahay waa laga yaabaa inay maaragtay arrintaasi dad badan isweydiiyaan waa laga yaabaa laakiin ma aha dhaxaltooyo qaabka suldaannimada beeshu markii suldaankaasi uu gudan waayo ama geeri ku timaado ama si uun uga tago qof kale oo markaale buuxin kara shuruudaha ay beeshu qabto oo xeer hoosaadka ka dhigatay ayaa loo dooranayaa booskaa loo dooranaya laakiin wiilkii uu dhalay suldaankaasi ma noqon doono waa qaadanayaa magacii suldaan waa ina suldaan laakiin ma noqon doono suldaanka beesha haddii loo doorto oo markaa ay beeshu isku raacdo oo wax la gartay waana arrin macquula weeye laakiin xeer ahaan sharciga ama nidaamkii la degsaday markii la bilaabay doorashada suldaannimada beeshu waxay ka duwanayd qaabkii hore oo dhaxaltooyada ahayd oo oday markuu dhinto wiilkiisaa dhaxal jiray marka way ka duwan tahay qaabkaasuuna ku yimid suldaan sheekh cabdiqani qorane uu ku yimid waxaa kale oo habkan lagu kala saarayay dhowr qodob oo ay ka mid tahay de kolley dhaqankaa soomaalidu waa wada leedahay oo marka suldaan la dooranayo qodobka ugu horreeyo la isweydiiyaabaa waxay tahay war diin muxuu ka leeyahay muxuu diin ka yaqaan baa la isweydiiyaa hadduusan qofku qof ehludiin ahayn oo diinta u dhow hadduusan ahayn way adag tahay waa la doortaa wayna dhacdaa marmarka qaar ha lagu doorto geesinimo iyo aftahannimo iyo ma garanaysaa waxyaabo badan oo dhaqanka soomaalida ah laakiin sida ay u badan tahay waxaa la tixgeliyaa oo aada loo tixgeliyaa diinta suuban baa aada loo tixgeliyaa qofku inuu wax ka yaqaan marka waxaa lagu doortay aqoon diimeed oo waafiya inuu leeyahay aqoon dhaqan oo xeerarka soomaalida degaanka labadaba inuu wax ka yaqaan aqoon maadi ah inuu leeyahay waxaa kaloo intaa usii dheerayd garasho iyo balaaqo dheer inuu qofkaas leeyahay marka kolley qodobadan marka anigu aan soo koobayo mid walba a b c d bay lahayd laakiin guud ahaan criteriyada ama dabeecadaha laga fiirinayay suldaanka marka la dooranayo waxay ahaayeen qodobadaasay ahaayeen suldaanku sida ay ii sheegeen nimankii goobjoogga ahaa oo guddigii doortay maalintaa sida ay ii sheegeen shuruudahaasoo dhan wuu buuxiyey anigana wayla ahayd inta aan ka arkay ama aan ka aqaan inuu buuxiyey shuruudahaas wayla ahayd halka codsi oo kolley anigu maantay anagoo hortaagan dadweynaha soomaaliyeed ee reer toronto iyo miidiyahaba anagoo hortaagan aan suldaanka aan kula dardaarmaya waxay tahay aan qabo inaan kulligan kula dardaarmayno baa waxay tahay inuu u cadaalad falo beeshiisa iyo reer puntland iyo soomaali oo dhan sababtu waxay tahay cadaaladdu waa salka nabadda haddii cadaalad la waayo nabadi ma timaado marka waxayna keentaa nabad iyo horumar ayay keentaa suldaanka intaasaan dardaaran ku siinaya haddii aan intaa kaga gudbo criteriyada lagu doortay horta aan in hor keeno waa kuma suldaan sheekh cabdiqani qorane waa kuma xagee ka yimi muxuu yahay suldaan sheekh cabdiqani qorane maxamed wuxuu ku dhashay tuulada allan ee ku taalla aagga baarey ee ka tirsan degaanka soomaalida ee etoobiya ku hoos nool sanadku markuu ahaa 1975 wuxuu dhammeeyey qur-aanka kariimka markuu ahaa 15 jir suldaan cabdiqani wuxuu ku barbaaray dugsigii hoose dhexe iyo sarena ku qaatay magaalada muqdisho oo ah caasimadii waddanka soomaaliya ah
wuxuu sidoo kale aqoonta diiniga ah ka bartay culimmadii Soomaaliyeed kuwoodii ugu waaweynaa ee magaalada Muqdisho cilmiga ka dhigi jiray sida Sheekh Maxamed Nuur Qawi, Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax, Sheekh Maxamed Dhagaxtuur iyo Sheekh Maxamuud Ciise iyo qaar ka mid ah culimada waaweyn ee caalamul islaam oo uu qaarna u safray qaarna uu fursad u helay inuu ka faa'iideysto muddadii uu deganaa dalalka qurbaha gaar ahaan Denmark iyo UK. suldaanku waa xaasle aabbe u ah 13 caruur ah isaguna jira 7 wiil iyo 6 gabdhood maasha Allah. suldaanku wuxuu diblooma sare oo business administration ah ka qaatay dugsiga ganacsiga ee magaalada Aarhus, Denmark, Aarhus Business School. kadib wuxuu galay jaamacadda VIA University ee magaalada Horsens kana qaatay professional bachelor degree ah qaybta engineeringka gaar ahaan maadada construction architect. wuxuu suldaanku hadda koorso master ah kuna saabsan القضاء والسياسة الشرعية correspondence أما انتساب waxa loo yaqaan kaga dhigtaa jaamacadda المدينة العالمية ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. wuxuu hadda si part time macallin kaga yahay jaamacadda Bariga Afrika farceeda Garowe. sidaas la mid ah wuxuu suldaanku xubin ka yahay guddiga BOD-ga jaamacadda GTEC ee tababarka macallimiinta ee magaalada Garowe. suldaanku intuu wadanka u soo wareegay muddo 2 sano iyo dheeri ah wuxuu ku shaqeeyaa xirfadda engineeringka isagoo dalka ka hirgeliyay dhismayaal casri ah dalkana ku cusub. wuxuu suldaanku sidoo kale si firfircoon uga shaqeeyaa faafinta dacwada islaamiga ah ee dal iyo dibad isagoo ka qayb qaata mu'tamaraadka iyo nadwooyinka diiniga ah iyo maadiga ahba. wuxuu suldaanku waayaha dambe hawl maalmeedkiisa ku garab waday juhdi badanna geliyey nabadeynta bulshada Soomaaliyeed ee colaaduhu kala irdheeyeen isagoo ahaa afhayeenkii guddigii heer Puntland ee ka koobnaa ismada iyo culimada ee dhawaan soo xaliyay dirirtii muddada 6 sano ah ka dhex ognayd beelaha walaalaha ee Cali Saleebaan iyo Muuse Saleebaan. sidaas si la mid ah wuxuu suldaanku kaalin mugle kaga jiraa ololaha horumarinta iyo dhismaha kaabayaasha dalka sida jidadka iyo bundooyinka si iskaa wax u qabsaa isagoo engineering team leader u ahaa injineeradii Soomaaliyeed ee dhisay bundada Midigaar ee tuulada Sunujiif laguna dhisay cilmi iyo dhaqaale iyo shaqaale reer Puntland. wuxuu suldaanku haatan xubin ka yahay guddiga dhismaha wadada isku xirta tuulada Ceel Daahir iyo degmada Ceerigaabo isagoo guddiga u ah afhayeen. suldaanku wuxuu si fluent ah ugu hadlaa luqadaha Soomaaliga, Carabiga, Ingiriiska, Daanishka iyo luqadda Jarmalka oo hadda weli barto. suldaanku wuxuu hadda si rasmi ah u degan yahay dalka kadib 22 sano oo ku noolaa dalalka qurbaha isagoo dalka ugu soo wareegay si uu uga faa'iideysto aqoontiisa, khibraddiisa iyo afkaartiisa waxqabad iyo horumarineed. intaasi waa biography-gii ama aan dhaho taariikhdii suldaanka iyo qaabka lagu doortay. de kolley inta anigu Soomaalidan soo dhex dhigay inta ay ka fahmi karaan ka qaataan oo ma garanaysaa kolley intaanu ku tixgelin doonaana waa intaasaan u malaynayaa iyo intii kale oo ku daro karaankiisa iyo kartidiisa ah intaasaan ku tixgelinaynaa. intaa marka aan dhaafo sida barnaamijku ahaa ama igu qornaa waxaan jeclahay mikrofoonka inaan ku wareejiyo marka ugu horeysa aan u yeero Cumar Xaashi. si kastaba ha noqotee waxaan ilaahay uga baryeynaa mas-uuliyadda la saaray suldaan cabdiqani qorane maxamed
inuu sidii caadadu ahayd cadaalad iyo sinaan qoyska loo doortay marka ugu horeysa inuu ku dhaqo. haani gunbay ka tolantaa. haddaadan meesha lagu caleemo saaray haddaadan mas-uuliyaddeeda cadaalad ku dhaqin haddee meesha kalena u gudbi kari maysid. waxaan leeyahay ilaahay ha kugu hago in aad cadaalad ku dhaqdo qoyskaa laguu doortay ama maanta beeshaa laguu doortay. soomaalidu erayadaynu aada u camal beeshu micno kalean u aqaanaa way ballaadhan tahay. waxaanse leeyahay maxamed cumar qoyskaa la yidhi ama beeshaa la yidhi cadaalad ku dhaq. ka gadaalna allaha kugu hanuuniyo deegaanka kugu heeran inaad cadaaladdaa u fidiso. ka bacdina puntlandi inaad u fidiso. intaa haddaad ka adkaato soomaali waxbaad u tartay, islaamkana waxbaad u tartay. anigu odhan maayo mas-uuliyad weyn qaran iyo islaam iyo taa waxaa lagu bartaa tallaabada gurigaagaa laga bilaaba. gurigaaga allaha ku tuso, allahna kugu hadeeyo. hambalyaan ku leeyahay. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر حاش siduu sheegayaba xogtaan ugu dhiibay dhinacaasaan maaragtay ka haday. aan u yeero cabdiraxmaan axmed aan u yeero. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. horta marka ugu horeysa suldaanka cabdulqani qorane maxamed waa u tahniyadeyneynaa annagoo ku hadlayna jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool toronto ama canada oo dhan. marka labaad waxaan leenahay oo aanu maaragtay u sheegaynaa sida ku taal labada gacnood isa salaamaya warqadda uu ku masawiran yahay aayadda qur-aanka oo ku dhigan wa umirtu liacdila baynakum. nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh ayaa dhahaya wa umirtu waxaa lay amray liacdila baynakum inaan dhexdiina cadaalad ka sameeyo. marka inuu cadaalad beesha uu isagu ka dhashay beesha ku xigta iyo puntlandi oo dhan ka bacdina u gudbo soomaali oo dhan. waa nin yar, waa nin hanan kara, waa nin balaaqo leh. ilaahayna waxaan uga baryaynaa mas-uuliyadda loo dhiibay oo aan ahayn runtii mid sahlan, waa mid adag, in ilaahay u fududeeyo annaguna aynu ugu ducayno uguna hambalyeyno. hambalyo runtii waxaa ah ducada. sababtu waxa weeye ilaahay qofka hadduu mas-uuliyadda u fudiyo oo u fududeeyo hambalyo ka wanaagsan iyo wax ka wanaagsani ma jiraan. waanu hambalyeynaynaa mar labaad. waxaanuna leenahay xilka laguu dhiibay kii ka soo baxa ilaahay ha kaa dhigo, ilaahayna ha kugu garab galo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل واحد مرة long list بان هايستا list آد در بان هايستا. أنا كسر دوية مركا أدر محمد نور عبد الله. محمد نور عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. horta waxaan mahad u celinayaa ilaaha weyn oo ina abuuray oo isugu keenay xafladan sharafta leh. mahadda isagaa iska leh, qanigaas aan cid kale oo la caabudo ay ma jirin. ilaahaynaas aan ilaah kale xaq lagu caabudaa jirin aynu barino, aynu ka baqno, aynu caabudno. mahadda ilaah baa iska leh.
midda labaad waxaan u celinayaa dadka dadweynaha meeshaan isugu kaa yeeray oo sharafta leh oo kana soo qayb galay inta ka soo qayb gashay iyo intii noo hagaajisayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqahayaa sidaad hawshiinii iyo hawlihiinii aad ka soo tagteen oo aad meesha ugu soo qayb gasheen inaad sheekh cabdi suldaan cabdiqani qorane maxamed aad ka soo qayb gashaan yaan idinku mahadnaqahayaa marka anigu waxaan ku darsanahayaa intii naas oo kale anigu waa aad iyo aad baan meesha ugu mahadnaqaya laakiin khabaar baan anigu sidaas oo kale aan khabaarkaas ka haya sheekh cabdiqani hadda waxaan khabaar ka hayaa isagoo dadkeena ka mid ah xamar reer xamar waxay yidhahdeen nin dooranay doorteen xay noo doorta u leeyihiin sheekh cabdiqani waxaan ka warhayaa isagoo aan hadda isin ahayn inuu puntland meel walba cilmi casri iyo cilmi sharciba uu aad iyo aad wax uga yaqaano oo ugu fiican yahay waxaan kaloo ka warhayaa isagoo oo aan hadda la dooran inuu ahaa ninka maslaxada dalka iyo dadka iyo soomaalida isu keenideeda iyo puntland ka shaqaynteeda ragga koowaad inuu ka mid ahaa baan ka warhayaa waxaan ka warhayaa sida hadda uu qorana noo sheegay buundada la dhisay oo iskaa wuxuu qabsada lagu dhisay inkii injineerkana ka ahaa madaxdana ka ahaa dhaqaalkeeda ururintiisa iyo magaceedeeda iyo howlaheeda qabashadeedana xag sanco iyo xag isku dayidba uu madax ka ahaa waxaan ka marhayaa inuu saaxiibka ahaa xagga diinta sheekh cabdulqaadir gacmay oo rag gacanta uu ku hayay ahaayoo sheikha ilaahay hadduu ku reey intii hore oo wax ka soo akhrisamay sheekh cabdulqaadir gacmay uu sheikhu ahaa oo gacantiisii labaad xagga diinta ahaa marka anugu waxaan ku darsanayaa intiinaanoo dhan oo aada u mahadsan waxaan ilaah uga baryaynaa waa la doortay sida loo doortay ilaahay inuu u hagaajiyo nasiibkiisa alla hagaajiyo wuxuu jecel yahay allaha siiyo waxaanu la jecel lahay allaha siiyo xaqna inuu gudanayo sidii la sheegeen xaqana inuu gudanayo oo waajibka familka al doortay iyo inta puntland ah iyo intii uu ka gaaro oo ka qaban karo soomaaliya tala iyo magaceedii isagoo aan soomaaliya inta aan joogin inta kale uu la gaari karo fariin iyo baryo iyo magaceedii iyo guwaabina inuu yeelayaan malaynayaa allaha ku anfaco cafi iyo caafimaad allaha siiyo nasiibkiisa alla hagaajiyo wax walba waa nasiibkiisa alla hagaajiyo awlaadda allaha u barakeeyo irsaaqada waasac allaha uga dhigo midkii liibaana oo lagu liibaana allaha ka dhigo ilaahay waxaan rabaa intiina ka soo qayb gashay oo sharaf tale oo meesha timidna aad baad u mahadsantihiin oo khayr badan baan idinkana laydinka baryahayaa dalka uu jooga iyo waxa uu jecel yahayna ilaahay ha uu siiyo ilaahay wuxuu ka baryo khayra iyo wuxuu qalbiga ka jecel yahay dhoona khayra allah siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta dadku hadoobaday uga baxaya aad iyo aad waa mahadsan tahay adeer maxamed nuur cabdulle kolley waqtigii salaaduhuna waxaad moodaa inayna hayaan waxaan laba daqiiqo saddex daqiiqo baan rabaa in ma garanaysaa aan dadka u dhiidhiibo waxaan jeclahay aan u yeero marka xaaji daahir بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما مغلي ثاني سلطان عبد الغني قراني محمد وأتهنيديننا waxaynu isugu noo xaweeye wixii hawsha loo doortay ilaahay u fududeeyay kaliya weey anigu ma arago taswiirtan haddaan baa arkay mar dhaweed warqad la ii dhiibay warqaddii markaan arkay ayaan arkaanay war suldaanka waaba kan dee hadda laymaba sheegin warqad yar baa la ii dhiibay suuradiisu ku taal soomaalida waxay tidhaahdaa wixii araggiisu ku deeqaa ontiisu ku deeqdaa markaan suuraddiisii arkaan baan ugu shaabaday inuu suldaan ninkani yahay salaadiintu way badan tahay anigu waxaan soo gaaray anigoo yaroo jooga berbere iyo hargeysa dhowrkii sannadoodba mar baa xaflad la qaban jiray weyn isticmaar baana haystay
barasaabkaa iman jiray waxaa la keeni jiray maxamuud cali shire iyo suldaan garaad jaamac garaad cali xaggeena laga keeni jiray labadaas waxay kala dhex fadhiisan jireen midna midigta ka fadhiisan jiray midna bidixda barasaabka ninka ag fadhiistaa markaa wuxuu ahaa dee nin qaxweeyey buu ahaa 1 iyo 2 bay ahaayeen waa labada keliya oo dadkeenna uu ku jira meesha kan saddexaad lambar 3 wuxuu ahaa suldaan cabdullaahi suldaan diiriye oo ciidagala ah waa ka heli jiray anagu yarar baanu ahayno waa kaa suldaankeenni baa dhinac fadhiya suldaanadeenni baa dhinac fadhiyaan odhan jiray in xagaalkii door laga warramay waa ku diirsaday buu yidhi ninka aan taagnahay 1954 cadan baa joogay malikadaa timi oo dhalinyaro ah xaflad baa loo dhigay ninka gaadhiga ku wada nin soomaaliya ahaa oo reer puntland soomaaliya salaadiinteeda o dhan waxaa laga keenay intii ingiriisku xukumo maxamuud cali shire xarig baa halkaa lagu xidhay salaadiin badan oo carabaa timi nin walba halkaas waa inuu ka dusaa suldaan markuu ka duso xagga kale u dusaa maxamuud cali shiraa yimi ul busito saas ushi ugu qaado xarigii saa ugu qaado u dhaaf wuxuu diidayaa inuu ka duso intuu foorarsado salaadiinteennu waa wanaagsanayeen suldaanka waxaan kula talinayaa anigu haddaba salaadiin badan baa jirta salaadiintu waa yaraayeen annaga berigaas maxamuud cali shire keliya hadda maanta waa 8 iyo 9 maqan waxay marayaan laakiin stiil magacii isaga faamiligiisii magaciisa meesha uu joogo waa laga dambeeya suldaanku waa nin wanaagsan oo cilmi iyo ilaahay siiyo aftahamo iyo wax walba sida la ii sheego ama hadda aynu ka akhriyayno weliba khibradda dadkii ka horreeyey odayaasha ahaa oo isimada ahaa oo weliba beesha uu ka dhashaya ma aha maxamed cumar beesha kale oo ka dhashay oo ku dhow wixii aadan khibrad u lahayn aynu isagu la tashado iyaga naftooda oo yidhaha war waxaas bal idinkaa iga khibrad roon waa inaanu noqon dictator waa inuu dadka kii la talinaayo oo talada yani taliyaal wanaagsan leeyahay waxaan kaleeto aan kula talinayaa in soomaalidana aanu ilaawin meelay joogtaba oo soomaalida nafteeda xil baa ka saaran mar haduuba suldaan yahay waxaan kaga baxayaa ilaahay ha u fududeeyo hawshaa waxaan ninkan ay ag taaganoo si buu yeegayaa saddex habeen buu yiri mari weeyaan wis hadda kaba badsaday marka ilaahay ha u fududeeyo hawsha suldaanka waana ayidsannahay waana u ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan jeclahay inaan u yeero kolley dee odagu cadan iyo halkaa iyo sheeko dheer buu degeeyey oo waagii salaadiintu ay lahaayeen maaragtay special privilege-ka aan u yeero maxamuud culusow السلام عليكم waxaan u malaynayaa Soomaalidu weli waxay daba socotaa 4.5kii waxa meesha loo fadhiyaa waa 4.5kii anigana waxaan u malaynayaa uu iga soo daahay Canada waxaan leenahay boqor suldaan leenahay suldaankiina dadweynuhu ku dhex jira marka in microphone loo dhiibo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u malaynayaa suldaanku faalla uma baahna taageero ilaahay buu u baahan yahay ilaahay ha taageero ma aha sida naloo sheegay garabkiisa nin waqtigiisii ilaahay siiyey ilaahay waa kugula xisaabtamaa ha la yiri cimrigaada cimrigu waa qaybsan yahay marka cimrigiisii wuu ka faa'iidaystay haddana dadkiisiiba uga faa'iideynayaa sida warbixintiisa iyo taariikhdiisa aan ku aragno ma aha suldaan beeleed ma aha runtii waa suldaan qaran allaha garab galo
microfonkana suldaanka iyaga ha lagu soo dhaweeyo asalaamu calaykum ها ما وقبول واسينا يا سلطان كادو جوجو عبد القادر سلطان عبد القادر ورسمه قلبيتي اكس او سلطان اكس بسم الله الرحمن الرحيم وأنا في عاقلك كورنيلكو ماركتي هذا الكونو يري سلطان كهرتا وهم بليينينا مرت شرف كان وهم بليينيا انتي اللي يري ويا هذا الكو وحن قدر يا كليا سلطان كا أنا حدد بانهاي aad baan ugu faraxsanahay suldaankayaga waa beel hoosaad hoose eedadiis 13 qof oo Axmed Nuur seega ruushka uu ku jiro ayay noo dhasho wada qurux yeerana sidiisoo kaleeto marka annagana liiska nagu dar suldaannimadiisa waa suldaankayaga haddii alla yiraahdo waana soo dhaweynaynaa mabruuq baana leenahay thank you very much مبروك سلطان عبد القادر انت مركان uga tago waan ogaa inta markaan uga tago aan u gudbo Cabdirashiid Boos garaad Cabdirashiid Boos suldaanada hadda waxaan malaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta waa aniga ugu horeeya wax ism magac lagu soo qaado qoliyihii kale ugaasiyo suldaaniya lama yeelin waa mahadsan yahay mursal garaad buu igu yiri garaadkana qoliyihii lahaa ma joogaan bahar sameeyay ma muuqdo marka waa qaadanaya taasi waa intaasoo kaftana talabaad gidigeen oo dhan waxaynu isugu nimid taageerista suldaan cabdiqani orane maxamed mursal markuu haddaay warramayay wuxuu lahaa sheekh cabdilqani suldaan sheekh cabdilqani suldaan qorane maxamed marka waxaan umaleeyaa sheekhii horta wuu hadhay sababta intii oday ahayd suldaan bay wada yidhaahdeen sheekhiis waxaan filayaa wuu ka hadhay suldaan buu hadda kadib noqonaya cilmigiisii waa leeyahay suldaanku maadi iyo diinba waa la sheegay waa sheekh waa nin wax yaqaana marka isagoo taaway laakiin markuu suldaan noqday waxaan filayaa hadda kadib wuxuu noqonayaa sheekhiisu jeebadii ugu jiray haddii alla idmo waa suldaankaas la sheegay waa taageeraynaa reer Toronto wax kaloon qaban karnaa ma jiro inagu waa taageeraynaa si niyad sami ah inagoon u kala hadhin waa suldaan beeleed beesha maxamed cumar hadduu dhaafo waa Soomaali weyn waa suldaan Soomaaliyeed markuu ninku isim noqdo waxaan filayaa meeshuu joogaba waa isim reerka markuu yahay uu ka gudbo waa Soomaali ta saddexaad waxaa la yidhi wuxuu ku dhashay kibilka shanaad Barry qoliyay iga horreeyay waxay yidhaahdeen Puntland kaliya kula dardaarmeen marka hore native hadduu noqdo ninkii Barry ku dhashay elkarri iyo Barry iyo ilaa yeed iyo dhulkii laba shilindi doolo dhul badan baa jiray oo ku dhashay ka yimid maxaa dhulka loo odhan waayay dhulka ay suldaankeedii baa tahay cadaalad u sameeyo ka warhay anu marka suldaanka waxaan leeyahay meel kasta Soomaalida waa suldaankeedii waa ku hambalyeynayna waa istaahilaa waa saad u sheegteen inkastoo hadda waa 40 jir da'da markii loo sheegay laakiin 40 jirka hadda waa dhalinyaro wali isoo haystaayo ma noqon laakiin ninkan intaas cilmi iyo maadi u bartay ama tolkii soo saaray 3 nin garbood baa la sheegay inay ka fadhiisatay marka waa nin u qalmo ilaahay ha garab galo yaanu ilaahay saan u sheegay kibilka shanaadna waa suldaankeedii hala socdo assalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waxaan u malaynayaa markuu xagga soo dhaafo kiilka shanaad usoo gudbaya baan malay laakiin hadda xuduud baa xagga u taala waxaan u malaynayaa inta badan maantay ragga un baan had iyo jeer mikrofoonka xaggooda aadinaya waxaan u malaynayaa suldaan cabdiqani inuusan ragga keliya suldaan u ahayn baan u malaynayaa haweenku dee qaybtooday leeyihiin soo maaha meeshaana weliba waa hawshu waa kasii fogtahay marka aan u yeero hoboladii qaranka faadumo cali nakruma oo anigu horta waxaan ka mid ahay ragga marmar dumarkana waan ka mid ahay marka siciidda fuujaa iga markhaatiya labada iyadu marka waa idin salaamay anigoo maxay ahayd ku hadlaya magaca dumarka haddana haaf ah haa bismi illaahi raxmaani raxiim waxaa caawa bisha ay tahay 6/2015 lagu dhigayaa magaalada Toronto xaflad caleemasaar loo doortay suldaan sheekh cabdi qani qorane maxamed oo ka soo jeeda beesha cumar maxamuud gaar ahaan beesha maxamed cumar doorashadaas oo ka dhacday magaalada xarfo waa magaalo tuula oo hadda la cusboonaysiiyey oo laga dhigay degmo marka waxaan aada xarfo aan ugu xeejinayaa carabka waxa weeye amba meel agteeda ah inkastoo soomaali ahay oo anigu aan fanaanad qaran ahay haddana nin walba meeluu ku biyo shubtuu leeyahay aniga naftigayga meesha meelaan ka fogeyn baan hadda waxaa la iga siiyey degmo oo la yidhaahdo saaxo marka magaalada xarfo lagu doortay anigoo ku hadlahaya magacayga iyo magaca beeshayadaba waxaan u hambalyeynayaa beesha maxamed cumar doorashada iyo caleemasaarka ay u doorteen madaxnimada suldaan cabdiqani qorane waan ugu hambalyeynayaa intiinaan joogta iyo inta maqan iyo reer xarfo oo dhan waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna maxay ahayd ha u fududeeyo caawa xaajadu waa beeyaan waa bishaare iyo khayr waa baqaan baqeennii waa bogaadintii suldaanka beelahoo dhan buu u yahay suldaan nin hadduu mar madax yahay ugaas ama boqor ama suldaan magaca wixii sheegto soomaaliya oo allahu akbar dhaha ama assalaamu calaykum buu u yahay suldaan haa beelahoo dhan buu suldaan u yahay salaam buuraha iska weyn barkhad iyo bogaadin leh bisinku uu ku qoran yahay oo buuraha iyo badaha iska weyn ayaan ku baarigaynaa suldaanka cabdiqani qorane maxamed iyo beesha reer xarfo oo dhan xaajadu waa garaan xilka guudka kuu saran allow guusha ku haleeshii gebiga soomaaliyeed waa ku garwaaqsanayaan oo suldaankoodii baa tahay suldaanow gacantaada ha gaadho gaar ahaan gobolladeennii iyo geeskaa barwaaqada iyo gogoldhigii puntland gargeyrta joogta u yeero haa gargeyrta joogta u yeero weligiin isgarabsada oo xilka guudka kuu saran ugu qaybi guurdadoo guurdaloolaya iman oo ku guulaysto xilka suldaan ku guulayso hawshaad u geyfan tahay suldaan ku guulayso hawshaad u geyfan tahay galladda eebbiyo nasiibkaagu gaamar noqoy gurmad ilaahay soo diriyo beesha gaar ahaan inta wax garanaysa iyo shicibkeenna gebi ahaan garab ha kaa siiyo rabbigeenna gacanta weyn oo gantaalaha cadowga gaashaamo kaa xigsade oo suldaan cabdiqani ku guulayso goor walbaba waxaan leeyahay suldaanku ha guulaysto inkastoo waktigu uu yaryahay gadaal baa laiga taagan yahay ninka odagaa baan ka ballan qaaday
laakiin waxaan leeyahay ha guulaysto cabdiqani adinkana waxaa idin leeyahay reer xarfo guul iyo hambalyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay faadumo cali nakruma waxaan u malaynayaa de qaybta haweenkao dhan faaduma qaadatay baan u malaynayaa caawa waa isu dambaynaynaa waktigu waa ciriiri aan u yeero liis dheerna waa haystaa aan u yeero maxamuud qalinle kaahin بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أرتا لمن كان ولا عليه حفلة قروح بدن سوق بنقابيي أدبا ومهد علينا نين كان ولا عليه هي دلني يرضى ما أنت حل كان لو دورتينا وحلينا إلهي وحيد تاس وحويا وحير راعة يعني بيش لو دورتي محمد عمره laftirkooda in asaga un culays la saaro maahae haddee wuxuu u baahan yahay in hawshii reerka lala qabto marka maxamed cumarna waxaan leeyahay warde isaguun ha sii eegine hawsha saaran ay u dhiibteen ku garab joogsada oo wixii ra'yigahee lagu biirinayo wixii isla kaashada oo la taliya oo toosiya waa nin dhallinyarahe waxaa farxad gaar ahaaneed ii ah yacni in la ii tiriyey culimmadii xamar kutubta ka akhriyi jirtay inuu kutub fara badan ka akhristay aad baan ugu hambalyeynayaa ilaahayna waxaan uga rajaynayaa xilkaa la saaray inuu ilaahay u fududeeyo oo uu noqdo nin dhallinyaro ah oo ka soo baxa hawsha wasalaamu calaykum aad iyo aad baad buu mahadsan yahay maxamuud qalile kaahin waxaan jeclahay inaan u yeero cabdinuur dibtati بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa dhammaan marti sharafta banalka kuwa fadhiya iyo kuwa dibadda jooga labada gabdhaha fanaanada qaranka meediyaha dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi cabdiqani qorane maxamed uma baahna tacriif badan nin aada looga yaqaano weeye geyiga puntland anigu inkastoo reer koonfureed ahay haddana maxamed cali baa halkan fadhiya iyo dadkii maaragtay aan lasoo koray maaragtay reer qoranana waa u hambalyeynaya iyaga naftirkooda magaalada xarfo aniga waxaan tegay 1993 diiri aabbahay baa ku duugan haddaad la socotaan beesha leelkase khaasatan beesha reer fiq ismaaciil waxay degan tahay burtinle ilaa gaalkacyo inta udhexaysa dadaan aada iyo aada isugu dhownahay weeye cumar maxamuud oo dhan raad khaasatan waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay ha guuleysto cabdiqani qorane iyadoon hadalka sii badinaynin waxaan u rajaynayaa inuu noqdo kii horseeda cadaalad run ah oo dhab ah horseeda isimada soomaaliya hadda waxaa soo badanaya dhalinyaro yaryar ayaa soo badanaya waayo odayaashii waa duqoobayaan saan filayo marka waxaan leeyahay dhalinyaradu waa inay ka bedelnaataa qayb sidai odayaashu u shaqeyn jireen hadda kahor sababtoo ah aqoon maadi iyo aqoon cilmi labadaba waa leeyihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام حق بانلك ولي أنا النقضة أنا يارو محمود شامع habeen wanaagsan waan idin wada salaamahayaa dhammaan mudanayaal iyo marwooyin dadkiinan caawa isugu yimid ee kasoo qayb galay xafladan calimasaarka ah sheekh cabdiqani suldaan sheekh cabdiqani qorane waxaan ilaahay u rajaynaynaa dhammaan dadkiinan caawa meesha isugu yimid inuu ilaahay xilka loo dhiibay u fududeeyo waa xil adag waxaan kaloo xasuusinahayaa ama
aan u sheegahayaa inuu dadka ugu ixsaanfalo si cadaalad ah, waayo waa xil culus, waa xil adag, waxa la marahayona waa waqti adag. Marka waxa maanta uu qaadina waa xil adag. Sida aan caawa ku maqlahayay, waa nin ka soo bixi kara xilka loo idmay, waayo wuxuu leeyahay aqoontiisii hadday noqon lahayd maadi iyo cilmi intaba, iyo tii islaamka intaba. Marka waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay xilka u fududeeyo. Dadka uu matalahayana waxaan ku booriyahayaa inay garab galaan, inay caawiyaan. Ma ahan waxaanu ku dhibanay xilkaas culus keliya ma ahan, waajib baa saaran. waxaa looga baahan yahay dhinac walba dhaqaalaha inay ka caawiyaan, waayo qofkii xilka waxba mu gudan karo haddaana la garab gelin. marka waxaa laga doonayaa sida nidaamka iyo dhaqanka uu jiro in loo gargaaro, in axsaan iyo dhaqaalo lagu caawiyo. marka waa idin wada salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبك محمود جامع oo maaragtay waxaan jeclahay aan u yeero Sheekh Cabdullaahi. عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku dhageysanay ma fahamtay waa title-kii aan lahaa baad igu yeeri weyday, waa sheekhnimadu baryahan aad bay u badatay waana la isku haystaa. ilaahay baa mahad iskale. awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa dhammaan xafladan aad iyo aad u quruxda badanna waanu idinkaga mahad celinaynaa aad maaragtay qaban qaabiseen. horta waxaan rabaa inaan idiin sheego oo inuu xusuusiyo ninka cimrigaas leh weli nin suldaana uma aanan hambalyeyn, meel lagu dooranayo meel lagu magacaabayna ma aan taagnayn. laakiin ilaahay maqaadiirtiis maanta waxaan halkaan nasiib u yeeshay saaxiibkay walaalkay Sheekh Cabdiqani in loo doortay suldaan, oo aan caawa raba halkaan duca iyo hambalyaba inaan uga gudbiyo. inuu joogaan jeclaan lahaa. horta reerkii doortay iyo odayaashii doortay oo u hambalyeynaya. sababtu waxa weeye ninka aad iyo aad u qiimaha badan leh oo aqoontaa faraha badan leh oo aan qaar ka ogahay in badan oo aanan ogeyn halka aad ka sheegtay adeer. haddii nin kasta oo suldaan ama reer kasta ama beel kasta ay ninka sidaa u qiimaha badan leh ay u dooran lahaayeen, waxaan hubaa halaaga maanta ina haysta iyo mushkiladayna haysata waanu ka gudbi lahayn. odayaashii iyo beeshii dooratay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin, lana shaqeeya. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. horta waxaan isku barannay 5 sano 6 sano ka hor muctamar halkaan lagu dhigay isagoo London ka yimid, dood cilmiyeed nadwa wax la yiraahdo. nin aad u qiimo badan oo xagga cilmiga iyo balaaqada iyo dadnimada iyo aftahanimada waxaan hubaa iska daa beesha dooratay Soomaaliya oo dhan inuu hogaaminayo. waxaan jeclaan lahaa inta aad ku hambalyeyseen ama aad halkaan ka sheegteen in ka duwan inaan ku daro, oo ah inana garta waxa weeye qaranka Soomaaliyeed buu ninkaan u qalmaa in loo doorto madaxweyne looga dhigo. beeshu ha soo bilowdo, soo doorato reerka ku xigaaba ha soo doortaan. Puntland ha soo magacawdo Puntland. annagu waxaanu leenahay, anigu dhinacaan ka soo jeedo waa noo sharaxan yahay. caaqilkii waa joogaa suldaan Cabdulqaadir, waxaan u malaynaya inuusan waxba ka qabinin. markay madaxweyne qaran ay noqoto beeshaas waxaan leenahay ninka odaga waa dooran yahay, madaxweyneaanu u dooranaynaa, qaran ayaanu u dooranaynaa. maxaan saa u leeyahay? waxaan u leeyahay aqoontii halkan laga sheegay iyo midda aan ku ogahay iyo midda diineed oo uu xambaarsan yahay inuu noqon karo madaxweyne qaran. marka adeerayaalow ka soo qaada meesha hoosoo hadda uu jooge qaran aanu ninkan u dooranno biidni illaah. waxaan laakiin hadalkay ku soo ururinayaa suldaan Cabdulqaadir iyo caaqilka iyo intaan muxuu ahaay iswada garanayno odayaasha dhinaca deriska ah, beesha ayadaa deriska la ah, aniga suldaan ha la ii doorto si aan ninkaa ula shaqeeyo oo reerku
oo reerku bashbash iyo baraare uu ku gaaro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad doctor sheekh cabdullaahi haddaan kambeynkeeda gelaynaa arrintaa intaas marka aan ka gudbo waxaan u malaynayaa indhahaygaa waxay qabteen waa ogahay dad badan baa ii laaban oo ka soo horreeya weliba odayaal leh laakiin waxaan rabaa inaan u yeero okay saciid dafuuje saaxiibkay saciid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مرسل waxaan isku ogeyn dadka aan ugu dambeeyo saasaa ballanku ahaa laakiin hadda waxaad moodaa inuu programku weli sii socdo marka ugu horeysa horta waxaan soo dhaweynayaa dhammaan dadka halkaan isugu yimid oo sharafta leh oo u yimid inay u hambalyeeyaan lana taliyaan una duceeyaan suldaanka cusub ee beesha maxamed cumar suldaan cabdiqani qorane maxmed waxaan si gaara u hambalyeynayaa suldaanka soona dhoweynayaa suldaannimadiisa anigoo aaminsan suldaan cabdulqaadir qorane maxamed inuu yahay nin mas-uul ah diinna leh oday ah da-da 40 sano hadda nebiyadii waa meeshay ku noqon jireen nebiga marka da-da 40-kaahi waa da buuxda wo maantay da u dhiman iyo caqli dambe u dhimani ma jiro aqoonteediina waa leeyahay waana ka muuqataa anigu waxaan aaminsanahay beesha maxamed cumar inay aada uga fiirsatay qofkii ay mas-uuliyaddaasi u dhiiban lahayd waa ay ka fiirsatay waana ilaahay mahadii waa ay heleen nin mas-uul ah oo hawshaa u qaban kara annaguna waa la soo dhaweynaynaa suldaankana waxaan kula talinaynaa mar haddii reerka suldaan looga dhigay ana dhulka waa ka warqabaa reer keligiis meel cidlo a degani ma jiro dadku waa iswada dhex degan yahay isagoo ehel ah buu daris yahay oo isku wada dhex jiraa nin kastoo oday ahoo reer oday u ahina dadka meeshaa degan oo dhan oday buu u yahay marka haddii rabbi idmo waxaan ka rajaynayaa in uu islaamka la shaqayn doono in uu isimada kaleeto oo gobolka jooga uu la shaqayn doono in uu ka shaqayn doono wanaagga iyo maslaxadda dadka deegaanka degan oo wanaaggooda uu ka shaqayn doono haddii rabbi idmo haddii mar isna uu yahay nin mudakarana oo waxbartayna uu yahay dadka soomaaliyeedi meel kasta waa isdhex joogaayo waa la safrayaayo xamar iyo hargeysa inta udhexle waa la isdhex socdaa waana la isdhex degaa waxaa la rabaa marka cadaaladda dadkaasoo dhan in loo sameeyo waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed oo dhan isku si in loogu odeeyo oday loo noqdo taasaan kula talinaya beesha maxamed cumarna waxaan kula talinaya soomaalidu nin bay inta isin ka dhigato oday ka dhigato hadhowna ka daba qaylisa waxay xagataayo shaararka jexjeexda ninkaa hadda sharaf buu leeyahay waa nin wadaada oo sharaf leh magaalada toronto waa laga yaqaanaa waddankii waa laga yaqaan maanta haddaa oday ka dhigateen idinkoo hadhow magacyo u bixiyey oo xagtay shiikha yaan la arkay shiikhaa sida aa u doorateen u sharfa tala siiya hadduu go-aan qaato go-aanka u daaya yaan la xagxaganin ha lala shaqeeyo hadduu idin celiyo idinkoo khalad ku ordaya idinka qabto waa ina ogolaataan haddaydaa saas yeelin hadda waa nin wanaagsan oo shiikha isagoo magacyaalahay buu iman doonaa marka shiikha la shaqeeya sharaftiisana hala ilaaliyo taasaan kula talinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay saciid dafuuje waxaan jeclahay inaan u yeero cabdullaahi dheere مرسل وما سيئة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما هتسنتي هدادا أورن إيش صوتك محايلة ولا أركا يبرد هدان فديو ساسي هذا سلطان كا إنه هم بليين إنه قلبتي
xafladan quruxda badanna loo sameeyey wixii la oran lahaa iyo wixii lagula talin lahaana badanaaba la yidhi anigu waa humbalyaynayaa sharaftaas jagadaa sharafta huwan oo loo dhiibay ilaahay inuu ku garab galo oo hawshiisa si cadaalada uu ku guto ayaan u rajaynaynaa waxaan joogay waxaa lagu doortay baa la yidhi meesha la yidhaahdo xarfo suldaanka xarfo waxaa kaloo lagu doortay islaam bashiir islaam cabdulle islaam faarax aan filayo in dad badan ay garanayaan goobtaasna waan joogay laakiin suldaankan xalfadiisa ma joogin waxaan kaloo joogay dhowaan iimaan cabdiwahaab maxamuud guri oo isagana meel ku dhow lagu doortay caaqil buu ahaa markii hore haddana imaam buu la baxay waxaan taageersanaa oo saaxiibka ay ahaa suldaankii hore oo dhintay allah u naxariistay hurre dibaddan soomaaliya ka jiray xafladan oo kale ayaa minnesota loogu sameeyey waan ka qayb galay marka waxaan leenahay suldaanka waxaa moodaa marka dadka shaqada raadsada baa yaqaan waxaan mulaya mursal inaad xoogaa sheekada igu furteen markaad ii dhibto waxaad tirin dad baa waxaa la yidhahdaa markay shaqo doontaan over qualified baa tahay waa ognahay jagada tan sida ka muuqata nimanka salaadiinta ahi si fiican bay u soo lebistaan cimaamad laalaaban bay halkaas soo saaraan oo u ah maaragtay lagu yaqaan niman suldaan ahayn hadda cimaamada lagu arko waxaa la moodaya inuu suldaan yahay ama isim yahay waxaa jidhay nin isim ahaayoo oo dhintay allah u naxariisto wuxuu ka tegay wiilal badan ninka ugu weyni makaanig buu ka shaqayn jiray marka makaaniga waa idinka arkay oo markuu shaqada ka soo baxo dharkiisa iyo wax badan baa ka muuqda oo aan maaragtay xarago ahayn markii islaamkii dhintay allah u naxariistee isimkii dhintay waxaa la yidhi ninkii laga dhigi lahaa bedeli lahaa ma uu helin laakiin inuu taa ku waayay in kale ma aqaan hadda waa shiikh waa injineer suldaan baa loo doortay waynu ognahay injineerka markii uu soo shaqeeyo koofiyadda warshadaha constructionka iyo jinis iyo buu la yimaadaa marka isagoo taa ku jira haddii looga yeero meel raggaasoo kale fadhiyaan waxay noqonaysa shaqay ku noqonaysaa inuu iska bedelo marka waxaan leenahay waa over qualified waxaa la yidhaahdaa laguma doorto isimada hadda hebel markii shaqo loo dhiibaayo warrinku cadkiisa ma goosan karaa si kalaad loo doortaa marka taasi waa commenta yar laakiin hadalku wuxuu ku leeyahay waa taageersannahay waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay hawshiisa si uu u guto u fududeeyo lana shaqeeyo isimada kale dadkiisana waa cadaalad falo wasalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo in aan live inuu ku xiro suldaan cabdiqani qorane maxamed suldaan waa maqlaysaa baan u malaynayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dadka xurmada iyo sharafta leh ee faraha badan caawa isugu yimid goobtaas aada fadhidaan dhammaantiin waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib runtii farxad iyo reereen bay ii tahay xafladan inaan kala soo qeyb galo
aad baana waxa weye uga mahadnaqahayaa anigoo mahad gaara usoo jeedinaya rabbilcizza subxaanahu watacaala markaa kadibna dadkii qabanqaabada iska lahaa ee hawshaa quruxda badan kasoo shaqeeyey gabdhi iyo wiilalba iyo inta goobjooga ee caawa halkaa fadhida ee walaalnimada iyo ehelnimada iyo soomaalinimada iyo wanaag jeclida in meesha iyada ay isugu keentay dhammaan waa bogaadinaya waana u mahadnaqayaa intaa kadib ilaahay waa mahad iskale subxaanahu watacaala mahadaan la soo koobi karin nagu galladay walxa badan oo shukrinaqooda da-aya tiriskooda aan na ka gaari karaynin walaalayaal runtii aad baan u jeclaan lahaa inaan caawa goobjoog idin kala ay halkaa iyada a waa joogtaan laakiin hadda adduun baa la yidhi ma dhamiguu dhashay marka qadar ilaahay bay noqotay in idinkuna meeshaas aad joogtaan ana aan meeshan joogo inada telefoonka ku wada hadalno anoo marka fursad ay ka faaidaysanaya insha allahu tacala dhowr kalama doonaya inaan idinla wadaago waxa ay tahay waad ka warqabtaan ummadda soomaaliyeed ma ujeeda la-a waxyaabo badan bayna rabtaa waxaana ila quman in haddaynu nahay ummadda soomaaliyeed ilaahay uu ku galladay minooyinka badan ee ay ka qatan yihiin ummado badan sida diinta ay wadaagaan isku dad iyo isku af inay yihiin waxaa ila haboon oo ila deegtoon inaan isweydiino waxa aynu rabno sideeda lagu gaari karaa maxaase caqabaad ah ee ina hor yaallo oo u baahan in laga leexiyo si aynu u gaarno waxa aynu doonayno qodobka xiga waxa uu yahay anigoo hordhacaas ka duulaya inaynu isku raacsan nahay waxaa la rabo oo aynu doonayno inuu yahay soomaali oo mid ah oo madax xubnaan danahoodana hal meel uga soo wada jeeda oo weliba ay ilaashan tahay identitygooda iyo hawiyadooda kuna socoto waddo toosan walaalo iyo wehella isugu ah ka faa-iideysiga waxa ay isdheer yihiin iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin isla mar ahaantaana ku taagan tiirka cadaaladda kalsoonida wada shaqaynta sida adduunka kaleba si lamid ah waxaa la isku raacsan yahay walaalayaal in ummaddu ay rabto wanaag kastoo ummada ay leedahay sidaas si lamid ah waxaa la isku raacsan yahay in hadda sida aynu nahay aysan marnaba ahayn dhan walba marka laga fiiriyo sidii la rabay iyo sii ku dhowtoona haddaba waxaa nala gudboon inaan u shaqayno una dhaqaaqno jihada uu naga jiro wanaagga aan doonayno wax walba xun waa lasoo tijaabiyey wanaagna waa lagu waayay haddaba waxaa nala gudboon oo keliya waxay tahay in wanaagga lagu gaaro wanaag oo keliya in wanaagga lagu gaaro walaalnimo in wanaagga lagu gaaro midnimo in wanaagga lagu gaaro hansare waayo waxaana wanaag lagu helin waxaana wanaag ahayn laguma helo midnimadu waa awood weliba gaar ahaan marka la joogo meelaha aada joogtaan oo waxa weeye aada la nooshiin ummado kale oo shisheeye ah dalkii aad kasoo fog tihiin midnimadu waxay aakid usii tahay idinka waxay aakid u tahay dadka ay dhibaatadu gaadhay dalkii dibada ku nool oo ku haray ayay usii tahay ilaahina subxaanahu watacaala qur-aanka in fara badan buu noogu sheegay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu xarigga ilaahay wada qabsada idinkoo midaysan hana kala tegina walaa takunuu walaa takunuu min aladiina tafaraquu waاkhtalafuu ha ka mid noqonina kuwii kala tegay ee iskhilaafay walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican kullu xisbin bima ladayhim farixuun walaalayaal dalku wuxuu soo maray maraaxil kala duwan maantana wuxuu marayaa marxalad la dhihi karo waa midii ugu horeyd markii la barbar dhigo yani waxa weeye qanaama rogodkii kala gedisnaa ee lagu jiray dhowr iyo 20 sano ee lasoo dhaafay waxaadna moodaa maalin ka dambeysa haddii sidan lagu wado
وحسلوني الروناتو إنه كثير رأينا بإذن المولى لكن حوارها لو قصوا بين عوان أكثر إنه سيحوا بيستقيب وحكا إلا هرو مسكح يأود يفكر من الإنسان وضدكو اسكو مستوكيين أما يستقلويين لنا أقوانتا هاد فكرك دوليسا وحا وناكسن arrimaha noocaas waxa lagu heli karaa dadka lagu tuhunsan yahay inay hayaan fikirkaas iyo doonistaas in dalkii laga helo dadka warqabtaan uquushii ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid ah waxa weeye dhulkay ka hooseysaa in badan oo soo hartayna dalkii waa ka jaan qaadeen oo dibaddii aadeen dadkaas sidaad ka mid tihiin baa la rajeynaya biidni ilmawla caza wajalla waxaana hubaa in halka ku fadhiyaa inaad dalkiina la jeceshihiin khayr dalkan hadda khayrka isaga imaan mahayo haddii aan laga shaqaynin dardaarankii ugu muhiimsan aan soo jeedinaya waxa ay tahay wanaagga dalka aad la jeceshihiin meesha aad joogtaan inaad kasoo bilowdaan dalkiina qalbiga lagu hayo maxaa yeelay lama huraan waa cawska jiilaal lagana fikiro sidii dalka loo gaarsiin lahaa sida aad aragteen adduunkii u shaqaystay oo u dhaqaaqay oo u horumaray biidni ilmawla caza wajal gabagabadii waxaan idin rajeynayaa guuriyo horumar iyo in ilaahi subxaana watacaala idinku amaansada halka aad joogtaan diinkiinana idin xasbiyo ayaan ilaahi subxaana watacaala idinka baryayaa aad baad ugu mahadsantihiin fursadan qaaliga aad isiiseen وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين aad iyo aad baad u mahadsan tahay suldaan sheekh cabdiqani qorane maxamed halkan waxaa fadhida ummad soomaaliyeed oo caaway xafladdaas aan kugu taageeraynay isugu timid iyadoo nin walba intii nin walba intii oraahdiisa ahayd uu oran karay marka aad iyo aad buu u mahadsan yahay suldaanku waxaan jeclahay marka programkeena inaan sii wadano kolley few minutes baa haray maqrib baa la aadaya baan filayaa aan u yeero muuse waa muuse jaamac igaal waa abtigay muuse shati بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وايد السلامي رجل الدمر وحنا دين رجينا يا واحد ونكسن سلطانك عبد الغني وراني محمد الله دورتي سلطانك باشا عاديات بانوكو تهندين يا قلبي فرن يا قعمة فرن بانوكو سودوين يا وحن ليه هاي سلطانك إلهي هاوفضو ديو حلكا وين الله دورتي ilaahay waxaan uga rajeynayaa inuu noqdo kii guul gaara ummaddiisuna jeclaato kuna guulaysta xilka loo doortay waxaan kaloo leeyahay qof kasta oo xil loo dhiibo haddaan lala shaqaynin meel ma gaaro waxaan codsanayaa in lala shaqeeyo soo jeedinayaa in lala shaqeeyo oo la taageero oo dhan walba gacan laga siiyo buuxda insha allahu taladuna waa midda rabbi soomaalidu waxay tidhaahdaa oo ku maamaadaa hadal haama lagama buuxiyo hadal hadduu wax tarayo waa la yidhi annaguna waa taageeraynaa waana soo dhawaynaynaa waxaana u rajaynaynaa wax wanaagsan iyo khayr maasha allah waa mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclahay in labadoo daqiiqo inaan siiyo سلطانك إنا سيايان شعله سلطان عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت أنا سلطانك وهم بليين أما ودعين أما لدر دارمين وحر وحرين هذه شرح أقونتك قار كانوا له ريركاس رير قرنا وحن برتكون لحدميدي وحنو صاحبهين إن يرادو عبد القادر قرنا وفم الآذ وبلارن waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego reer qorane waxay ilmaadeer yihiin reer aadan haddaad taqaanaan xaawo aadan aamine aadan injineer xasan guanti howlo badan ayay ka fuliyeen gobolka
mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo howlo kalena waxay ka fuliyeen caasimadda magaalada puntland garowe sidaa la socotaan aamine xaawo iyo shuuke wasiirkii hore waxbarashada mashaariic badan bay ka wadaan magaalada la yihahdo garowe mashruucan weyn oo la yidhaahdo waa idiin soo koobahaya haddaan dhankan kale ugu gudbo aniga waxaa la yidhaha cabbaas yaasiin axmed keenadiid lama yaqaano shirarka kama hadlo hadalna waxay ugu dambeeyey sagaashameydii dhanka finanskaana u badnaa weligey marka finanska markii laga hadlaa lay xasuustaa laakiin shirarka rag kala ka wada hadla intaas haddaan kaga baxo reer qorone iyo reer aadan hadda suldaanka waa u hambalyeynaynaa waxaan ku bartay youtube isagoo shiikha haddana saldana ilaahay uu kordhiyey waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu fududeeyo suldaan hambalyo dhinaca ducada hadda odayaashaa wada duceeyey hadda looma hadlo anna waa inaan hadlaa raggii horey wada hadleen inkastoo ayaamahan erey la bartiliyaada haddaan kooyay marka sugaalta allah u fududay hawsha jaaliyaddu ka dhashay iyo puntland iyo soomaaliya oo dhanna garab waa in la siiyaa hawshiisa ilaahay inuu u fududeeyo waa nin diin yaqaana saldanada loogu daray dabcan qisdi iyo cadaalad baa lagu tumaya waana ku wanaagsanyihin dadka noocaasa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحن ملاينا يا وقتي وان هيا صلاة دان ملاينا يا أن سيو لبض دقيقة كله أن سيو فيصل فيصل وصاحبكي فيصل قورية ولي غير بيدبو يا نسلان ما ربنا لا حمر لا يدون بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله runtii farxad gaarayay tahay maaragtay marxabeynta suldaanka iyo dhammaan reer qorane waxaa ii dheer ree aadan camey oo iyagana ilaa 100 sano taariikh ah aanu isla leenahay generations runtii aad baan ugu faraxsanahay ilaahay ha u kaalmeeyo xilkiisa waanu ugu soo ducaynaynaa السلام عليكم ورحمة الله يا صلاتي waxaan u malaynayaa salaadii maqrib baa la aaday baan u malaynayaa baa jooga aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan odayaasha salaadiinta nabadoonnada aqoon-yahanka waxgaradka gabdhaha hooyooyinka dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen xafladdan taageerada ahayd oo aanu ku taageeraynay uguna hambalyeynaynay suldaan cabdiqani qorane maxamed waxaan u malaynayaa dee habluhu meeshay joogayaan baan u malaynayaa iyaga xafladdu waa usii soconaysaa intayada kale waxaan u malaynayaa maqribkii ayaan u gudaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin odayaasha aad baan idinku mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu اللهم احفظني بالسلام اللهم احفظني بالسلام عبد قني يو قني إلهي سومالي وصود دراي حدك سومالي ودشي الله كاديغو حدك سومالي ودشي الله كاديغو محمد عمر يا عمر محمود يا محمود سليمان أنو كلية كامل دقينه سومالي يودن حدك ودشي أو يسوسو دوية إلهي إذن كي همبليو كي سومالي إسوكينا إلهي هكاديغو أو سومالي مدية حدق وصوبها ترى وناكسن كينا إلهي هكاديغو أرورية إسوكينة مداية إن شاء الله إلهي إذن كيس مداية الله هكاديغو علمكاغا من نافع الله هكاديغو عملكاغا أقبل الله هكاديغو صالح الله هكاديغو صلاة الله هكاقبل صونك الله هكاقبلو لسانكاغا مد حلال ولا جعليها الله هكاديغو إلهي إذن كيس مدان حاسدني بقلين oo kala sooc keenin oo kala nabcaysi keenin ee ummadda u sinan oo wanaag iyo khayr dhex dhiga oo ducadayada alla u aqbalo oo xaaraanta ka dheeraada oo xalaasha u iisha baan ilaahay kaaga baryayaa ilaahow nabad carabkaaga ay noo saaraato ilaahow nabad iyo heshiis iyo walaalnimo
iyo walaalnimo carabkaaga noo saaraato yaa ilaahay waxaan ka baryahayaa allaahuma axfidnii bisalaam ilaahay inuu ku xafido adduunku waa waxa weeye adduunku waxaa weeye maxaan ku idhaahdaa allaha ku xafido weeye aakhirana waa akramullaahu markii aad adduunka joogtid qofka loo bogo oo ummadda u sinan oo maxaan ku idhaahdaa kulli soo dhoweeya oo aan qabiil ku shaqayn ee ilaahay darti u shaqeeya oo xaqa ku shaqeeya oo lilaahida ku shaqeeya yaa qofkaasi ijaabaheeda ducaduna u kacdaa qofku hadduu xaaraan iyo kala sooc iyo shiddo iyo kala fogays keeno gurigiisana ijaaba ma gasho isaguna maba sii hayo yaa marka intaad adduunka joogto xafid allaahu si ilaahay kuu xafido ha ku xafido aakhira markaad aadid marka lagu leeyahay raxim allah waxa weeye haddee markaad adduunkii soo kasbatay waxa la yidhaahdo ducadii aad soo kasbatay ilaahay kuu qaado raxim allaahu raxmaddii iyo jannadii baa ilaahay ku geynayaa soo ma aad fahmin laakiin haddii aad intii aad adduunka joogto aad bala soo shaqayso raxmad aakhirana heli maysid xafid adduunna heli maysid marka waxaan u sheegahayaa ilaahay waxaa ka baryahayaa anigu ducadaan kuugu qaybsanahay ducadayada ilaahay inuu ku siiyo adna mid naga ducaysta aad noqoto xalaasha u dheereeya xaaraanta ka carara xaqa ku maxaan ku idhaha dadaala ummadda sinaan iyo cadaalad iyo walaalnimo isugu keena kulli muslimka oo dhan haddana gaar ahaan soomaali allaha isu keeno oo isu soo jeedso oo bogeeda burcad isu mariyo ilaahu soomaali bogeeda burcad isu mariyo rabbiyow dagaalka naga jooji oo balaayada naga jooji adigana insha allaahu camal waxaa lagu doortay mas-uul adag baa ku saaran allaha kuu fududeeyo cabdiqaniyow hambalyo midkii lagu raysto oo raaya noqo insha allah midkii ducadayada alla ilaahay idankiis ilaahay raalli uga noqdo allaha kaa dhigo camalkaagana mid maxaan ku idhaahdaa waxaa lagu ducaysta allahuma inii as'aluka cilman naafican wa risqan dayiban wa camalan mutaqaabilan yaa ilaahay inuu camalkaaga uu kaaga dhigo maxaan ku idhaahdaa mid naafac leh oo ummadoo dhan deeqa yaa adiga waxaan diidayaa inaan qowqow ilaahay hargaba ahaye soo ma adan garan ceeb maahe waxaan kuu sheegayaa ilaahay mid muslina oo aan huguri la tegin oo hawal la tegin oo guryo dhiso u dhaqaaqin oo balaayo kale u dhaqaaqin allaha kaa dhigo salaamu calaykum hambaliyo salaamu calaykum allaahuma xafidnii bisalaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي مقلي هذا waxaan aada ugu salaamayaa dadweynaha meesha iskugu yimid dhammaantood maanta ay tahay in u hambalyeynayno suldaankeena qaaliga oo aanu dooranay waxaan leeyahay suldaan cabdiqani qorane hambalyo aada baan ugu hambalyeynaynaa waan ku faraxsannahay magacayga aniga waa samse cumar dheere waxaan rabay in halkaan miro yaroo ay walaashay sureer cumar dheere soo dhiibtay aan uga tiriyo ma buraanburo mana kabiyo laakiin farxadda maanta awgeed inaan wax sheego ku faraxsanahay aan suldaankeena kusoo dhaweynayo haddaan dee baraamarka ku ciyaaro dadka baraanburi jira danba ay qabsanina ya marka bismillah marwiya mudanow salaaniga mulkiya salaanaan ubax kumaheygaarayo murtile malaa'igiyo jibriil maamulka u hayaan midigta ku qabsada muftaaxeeda wada hantiya haddaan cabdi qani ka qiisooda oon qayaaxo nin qaaliyaa dhalayo hooye qaymi badan yaraantii qalinkii loo dhiibay laguma qaadin oo wuxuu ka qalan jabiyey kuliyaadka qaaliga qalad muusan galin qaangaar intuu ahaa oo waa shiqaaliyo qalbigiisu yahay saliim qaymihiisa tolkiis duubka loogu qiray saxbaan la hadlaayo sadriga wax laga gartaa saxbaan la hadlaayo sadriga wax laga gartaa soddon daraarood satariiba lagu ahaa
waxaad sararaha ku haysaa 9 malyuun waxaa ku saaciidaya sinjigii awowaha oo saymaroobow ammaantaadu male saluug cabdow dal wanaaja dooroone reer tolka dalkii hooyay durbahaankaaga tumahayaan ubax waxay daadinahayaan caleema dog adna midkaan daalinoo beesha deeqa noqo tan iyo boosaasa iyo bayla iyo burdiya banaankii gaalkacyood beelihii fadhiyey bulaalow farasku meeshuu fariisan jiray tan iyo booq baa banaadiq lagaga riday 100 karoonow bisinka lagu hayaa marqaan iyo sool hawdkii miraha badnaa marqaan iyo sool hawdkii miraha badnaa mareer caatiyo mooyaale iyo marsamad kismaayo moolkeeda ehelkaaga magaca weyn intaasoo meelo ehelkaagu meersan yahay ayaa mudanow ammaantaadu moosh ku tahay mashxaradiyo sacabka maasha allah la yidhi muhandiskaygiyo maamuuska iyo micna muhandiskaygiyo maamuuska iyo micna maxamed cumar waa raggii mudka sare ahaa mayraxdoodiyo mulaaxdoodu waa macaan mayla nimankaas ku noolo mas-uulada madhaafaanka majeerteenka ugu magroon mala laa siiyey magacoodu waa mid quura cabdow degaankeenu waa doole iyo wardheer cabdow degaankeenu waa doole iyo wardheer dooxadii mudug nugaal baynu daadsanahay eedda isku duubnideena la doonayaa inaadan ka daalin khayrka la doonayaa inaad u ducaysid reerka la doonayaa duubka lagu saaray weligaaba kama dego oo duubka lagu saaray weligaaba kama dego diinta aadaadahaynay si dayrka dhigo midnimada lagu dawoobayo daacad noqo ummada kala dhowrta kiisoo dabaala noqo midkii muslimiinta u diige daryeela noqo oo sidii doorkii ku dhalay dadaheeya noqo cabdiyo duca baytin loo isaaran tahay burhaan cabdiyo duca baytin loo isaaran tahay burhaan oo reerkaagu ku barakoowo samiya baar oo aad ku barakowdi sidii beesha reer tolka balaysinku noqota bismillaahi baanu niri duca ku beermaysa baydkaagiyo ilmaha baraka lagu dheehayo loo bogaan wadnaa allow burjigaaga laga yeelo midan burburin ducaan soo dhoobnayo khayr ku dheehan yahay ducaan soo dhoobnayo khayr ku dheehan yahay intiyo dhalasho ehelka wada dhan yahay cabdiyo kugu beegan bahan dujka kugu xiray edurkaagiyo dhaqanka rabbigay wax kuma dhimo oo waqtiga kuma dhaawiciyo kii dhibkaaga jecel abar eedadiis usoo dhiibtay sureer cumar reere intaasay ahayd marka waxaan leeyahay hambalyo suldaankeena aad baan ugu faraxsanahay ilaahay ha kaa dhigo kii dadka iyo dalkaba anfaca bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah sacdiye cali warsame waxaan u hambalyeynayaa cabdiqani qorane maxamed suldaankeenna oo la doortay
annagana waxaan leenahay hambalyo waana ku faraxsannahay ilaahay u garab galo howsha culus uu hayo waxaan u mahad celinaynaa ummadii dooratay oo tolkii iyo eheladii dadkii dhan oo doortay baan u hambal celinaynaa asalaamu calaykum السلام عليكم دمانتين dadka sharafta leh meesha isku yimid hambalyo waxaan u dirayaa Abdiqani Qorane hambalyo aan ku dhahayaa marka ugu horeysa ilaahay waxaan kaaga baryaa hawsha qabto ilaahay ku garab galo magacay waxa la yiraahdaa Cano Cabdullaahi Ali Barabuutaan oo heltuula xarfa ah waxay la tahay safarka xigana imaan doonto la xarfa inkastoo aqoon kugu lahayd yaa insha Allah ugaaskeeni maha Umar ma sha Allah ilaahay ku dabaq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو أيان دعاء جامع جهاد وحان أدريا همبليو يبوغادين سلطان الشيخ عبد القاني قراني محمد سلطان كعصب لقى عن شبن دونه سلطان أنا كهاد ليعود كدميرة الصومالية دي كنور تورنتو وحان كوسو دريا همبليو وحان رجينيا إن شاء الله إن نقطو كي صومالي اسكو كينا تاكولية عدالة السنان كل حد حادية إن شاء الله بإذن الله أنا كهاد أنا مانتي ماشان أصف فرستي مجا الصوماليات يجار هاند إن بوتلان أديكو محو هت أو يجو آدن إن شاء الله مركي يجو جدون إن بقادين تان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحن صلان يهم بليو إيو أن لسوكو بكرين قدريا سلطانك عصب عبد القاني قراني محمد oo loo doortay suldaannimo oo lagu caana shuban doono bisha Agoost 3 insha Allah hambali aan leeyahay waxaan kaloo halkan hambaliyo uga dirayaa raggii hawsha adag qabtay ee soo doontay oo u doontay baan hambaliyo weyn u dirayaa waa ku mahadsan yihiin waxaan halkan kaloo hambaliyo uga dirayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay rag iyo dumarba ayaan hambaliyo u hambaliyeynayaa xafladan weyn ee loogu talagalay suldaanka lagu adiidayo lagu soo dhaweynayo hambaliyaan idin leeyahay waxaan u duceynayaa suldaanka ilaahay ha ka dhigo kii daacad iyo midnimo ku maamula qoyska iyo Soomaali weyn iyo Puntland kii isku keena Soomaali weyn oo kala daadatay ayaan rajeynayaa inay noqotid oo lagu hawlaha lagu doortay waxa tahay nin aqoon-yahana waxa tahay nin diinta iyo aqoon kalaba ku dheer marka waxaan rajeynayaa in aad isku keentid Soomaalida kala burburtay aad midaysid baan rajeynayaa waxaan kale oo ilaahay ka baryayaa in ilaahay dhalinyaradii tahriib bay ku dhamaatay Soomaaliya in ilaahay uu tahriibta ka joojiyo oo ka madoobeeyo ayaan rajeynayaa oo ay wadankooda khayraadka ka buuxo ay arkaan oo ay ku nagaadaan wadankooda oo ayagii oo wax bartay oo jaamacado dhameeyay ayay waxay ku dhamaadeen tahriib marka waxaan rajeynayaa inay wadankooda ku nagaadaan oo khayraadkiisa arkaan oo barwaaqadiisa arkaan oo ka shaqaystaan oo horumar gaarsiiyaan intay u qaxayaan wadamo shisheeye oo dadkii joogaba ay rabaan inay ka soo qaxaan saasaan ilaahay rajeynayaa Cabdiqani ilaahay ha ku nabad yeelo ilaahay hawsha ha kula garab galo annaguna waa ku garab taagannahay Soomaaliya idil waa ku garab taagantahay ilaahay ha kuu fududeeyo ma lagaaga harayo macnaha suldaan baa laga dhigay kaliya laguma dhahayo ee ma lagaaga harayo waa lagu shaqaynayaa hil iyo hooba waa lagu shaqaynayaa insha Allah ilaahay ha kuu fududeeyo warasada Allah ha kuu barakeeyo kulligan ilaahay warasada ha inoo wada barakeeyo kuwa shisheeyaha wadamada shisheeye joogo gaalada ilaahay ha soo aruuriyo warasada Allah noo hanuuniyo diinta iyo nabadda Allah soo dabaalsiiyo ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ha kuu fududeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو مقعيقو هودان علي ورسم أودون وحان وهم بليين ولالكي عبدالقاني قراني محمد وحان لي هاي حلق اللي قصاري الله كوف ذيو الدنيا آخربا هم بليان كلها هم بلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan u celinayaa bogaadin dadka xafladan soo qaban qaabiyey oo rag iyo gabdhaba aad baa u mahadsan tihiin waxaan kaloo halkan ka salaamayaa Cabdiqani Qorane Maxamed oo suldaanka cusub ah
waan ku salaanay dhammaantayo waana ku soo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay suldaannimadaada xilka ilaahay ha kuu fududeeyo xil culus baa ku saaran ilaahay ha kuu fududeeyo waana ku taageeraynaa waana ku faraxsannahay insha allahu tacaala ilaahay waxaan kaaga baryaynaa mid ummadda iyo dalka iyo diintaba anfaca oo wax ka bedela inaad noqotid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay hambaliyo qabanqaabiyaasha xafladda suldaan cabdiqani qorane maxamed waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay xilka ha kuu fududeeyo aniga oo ku hadlaya magaca gabdhaha puntland ee toronto aad iyo aad baa ugu faraxsannahay xafladaada isku beel baana waxaan ahay beesha cumar maxamuud majeertay xooma kale aha hambaliyaan ku leeyahay xilkaaga allah kuu fududeeyo assalaamu calaykum السلام عليكم magacayga waxaa la yidhahdaa Cusmaan Xasan Warsamo Awdoon waxaan u hambaliyeynayaa Suldaan Cabdilqani Maxamed Qorane Suldaan Cabdilqani Qorane Maxamed waxaan u rajaynayaa guul iyo hoggaan wanaagsan iyo cadaalad inuu maaragtay reerkana ku hogaamiyo inagoo dhan ina ka dhigo kuwii maaragtay la shaqeeya oo insha Allah wax khayr ah uu soo saaro insha Allah salaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم بعد السلام أنا وحنا همبلي ودريا كنت أنا همبلي أنا أوران كريم عن لا يدعو حلك عذاب وقاضي سودان عبد القاني قرن محمد وحنور رجينا يا تكفي عدي دورتي يدك ديجان كبا يا صومالي ودنو هرسيد عدالة من نمو يا ولا نمو simada Puntland iyo deegaanka Soomaaliyeed uu ku soo kordhiyo aqli iyo hadii alla ma kooriyo cilmi intaba aad iyo aad noogu salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigoo ah liibaan sandeel faarax beyle bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdimursal cumar aadan bootaan dhaban leexshe waxaan bogaadin iyo hambalyo hawada u marinayaa suldaan sheekh cabdiqani qorane maxamed waxaan suldaanka kula dardaarmayaa in uu u cadli falo inta agagaarkiisa joogta oo Soomaali meelay tahayba sababtoo ay tahay qofku markuu suldaan yahay suldaan uma aha beel kaliya uma aha waxa uu yahay inta Soomaaliya oo deegaanka uu joogo ku soo hirata ayuu suldaan u yahay nin walba oo deegaan jooga oo Soomaaliya oo darajo suldaan ugaas garaad malaaq maxaan ku yiraahdaa ii keenay oo duuba oo wata inta hoos joogta ayuu mas'uuliyadeeda leeyahay marka suldaanka waxaan ugu baaqayaa inuu u cadaalad faro ummadda Soomaaliyeed in wax badan oo u baahan dadka deegaanada degan iyo ummadda Soomaaliyeedba sidii uu galabta ka sharqamay in uu ugu sii tilmaamo oo ku dhiirado waliba inuu sii tilmaamo oo ku dhiirado ayaan ugu baaqayaa waana salaamayaa suldaan cabdiqani inta kale oo iga daawanaysa miidiyahana waa salaamayaa oo Soomaaliya meelay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa mahadsantiin